السلام عليكم صاحبada qiimaha iyo qaayaha badan ku soo dhawaada channelkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar haddii aad horey noola joogteedna aad baad u mahadsan tahay sii share channelka oo la wadaag saaxiibadaada barnaamijka maanta aan soo horyaalka Packers Premier League aan ka bilowno kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Newcastle United ayaa weerarka ama nambarka 9 ee Benjamin Sesko waa xiddig xor ah una haatan doonayo inuu ku biiro koox cusub maadaama kooxdiisa kaliya ay ku soo bandhigtay lacag gaaraysa 70 milyan. xiddigan ayaa Arsenal doonaysay bilowgii xilli ciyaareedkan laakiin kooxdiisa ayaa isku adkaysay waxayna kooxdiisa dalbanaysay lacag ka badan 100 milyan. haatan wararka soo baxay ayaa waxay sheegayaan xiddigan in lagu soo bandhigay kaliya lacag gaaraysa 70 milyan. kooxooyinka haatan isku haysta xiddigan waxaa ka mid ah kooxda Newcastle United iyo kooxda kubadda cagta Manchester United. labadan koox oo ka dhisan London United ayaa isku haysta xilli ciyaareedkii haatan dhamaaday ayaa wuxuu dhaliyay gool gaaraya 22 gool kooxdiisa RB Leipzig oo ansixiyay xilli ciyaareedkii haatan dhamaaday. Sesko waa xiddig number 9 ah oo ku fiican boos walba inuu ka ciyaaro ama koox walba uu ku soo bixi doono waana xiddig tayadiisa sareysa. Newcastle United ayaa doonaysa xiddiga inay bedel ugu dhigto Alexander Isak oo ku sii jeedo kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka Manchester United ay doonayso inay bedel ugu dhigto xiddigeeda oo ama haatan ugu biiray kooxda kubadda cagta Barcelona ee Marcus Rashford. laakiin wararka maanta soo baxay ayaa wuxuu sheegay Newcastle United xitaa inay diyaar la tahay lacag gaaraysa 100 milyan si ay gacanta ugu dhigto xiddigan Benjamin Sesko. xiddigan tayadu wanaagsan leh ayaa haatan waxaa la sheegay inuu xitaa loo bandhigay mushaar waaliya kaas oo fududeyn doona inuu ku biiro Newcastle United doorku uu ku biiri lahaa Manchester United. ilaa iyo haatan ma doorana kooxda saxda ah oo asigu ku biirayo Benjamin Sesko, laakiin wararka haatan soo baxay ayaa wuxuu sheegay wakiilka xiddiga inuu doorbidayo xiddigan inuu ku biiro Manchester United, halka Benjamin Sesko uu doorbidayo lacagtan waalidaha ay taalo Newcastle United. Newcastle United ayaa xiddigan diyaar u lahaa isbuuc inay Manchester United ay diyaar la tahay kaliya 150,000. xiddigan ayaana loo badinayaa inuu dooran doono Newcastle United. wararka kale oo haatan soo dhacay kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxaa la sheegay inay ku dhowdahay xiddiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Rodrigo. xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil ayaana Real Madrid u sheegtay inuusan wax door ah ku lahayn xilli ciyaareedka haatan soo socdo kooxdooda kubadda cagta ee Real Madrid. Rodrigo ayuu doonayay kooxooyinka Premier League inuu ku biiro waxaana xiiso waali ah ka helayay sida kooxaha Manchester City, Arsenal iyo Liverpool. laakiin Manchester City iyo Arsenal ayay ka bixin doonista xiddigan maadaama lacagtiisa ay tahay 80 milyan iyo wax ka badan, iyagana qarashaad fara badan ay suuqa ku bixiyeen xiddig kooxooyinkan. haatan waxaa kali ku noqotay kooxda kubadda cagta Liverpool taas oo laga yaabo inay ku dhawaaqdo xiddigan 24 saac ay haatan soo socdo. wararka kale oo ka imaanaya kooxda kubadda cagta Arsenal, Arteta ayaa ka qustay xiddigihiisa kala Alexander Trossard, Gabriel Martinelli iyo sidoo kale xiddiga qadka dhexe Martin Odegaard. wuxuuna haatan raadinayaa kooxda kubadda cagta loo raadinayo xiddig ka ciyaara nambarka 10 iyo sidoo kale garabka left wing. Alexander Trossard ayaa kol hore buu wada hadal uu sii socday kooxda kubadda cagta Fenerbahce kaas oo loo badinayo inuu ku biiri doono Fenerbahce, laakiin Arteta ayaa xaqiijiyay inuu kooxda ka dhaqaaqi doono Gabriel Martinelli uu kooxda sii joogi doono laakiin uusan ahayn dooqiisa koowaad ee garabka weerarka. sidaas darteed kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyadana duulaan ka ah kooxda kubadda cagta Newcastle United. Arsenal oo ka doonayso inay ka soo qaato xiddiga xulka England iyo kooxda kubadda cagta Newcastle United Antonio Gordon. xiddigan Antonio Gordon ayaa asiga hata doorbidayo inuu ka dhaqaaqo Newcastle United. kooxda kubadda cagta Newcastle United wakiilka Antonio Gordon iyo Newcastle United ayaa kol hore ka fadhiistay inay xiddigan ay ku fasixi doonaan lacag gaarayso 60 ilaa 70 milyan inta u dhaxayso. Arteta ayaana taageero waali ah ka helaya xiddiga
kooxda kubadda cagta Newcastle United iyo xulka England Antonio Gordon si la mid ah nambarka 10aad ee kooxda kubadda cagta Arsenal mucallimu Mikel Arteta wuxuu u calaamadeystay xidiga xulka England iyo kooxda kubadda cagta Crystal Palace Eze ayaana haatan loo badinayaa inuu ku biiro kaas oo heshiiska shakhsiga ah kol hore wada gaareen oo kaliya lacagta kubadda cagta Crystal Palace ay ku doonayso 60 milyan ah waxaa la isku haystaa kaliya qaab bixinta lacagta ee 60 milyan laakiin xidigan ay heshiiskiisa intooda badan kol hore u dhacay haatan wararka had maanta soo baxay ee waxay sheegayaan Antonio Gordon inuu yahay targetkiisa koowaad ee mucallimu Mikel Arteta ee garabka bidix ee weerarka aad baad u mahadsantahay saaxiib haddii aad intan la soo gaartay aad baad u mahadsantahay haddii aad ku subtay channelka subscribe noo saar haddii aad hore noola joogtayna aad baad kuugu mahadnaqaynaa si shargaray channelka la wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsantahay sharaf iyo